salaadaha faralka ah ama guud ahaanba salaaday waynu tukanaynaa maxay u baahan tahay markaan intaan akhriyo waxay garan doontaan cilmiga salaadu inuu badan yahay ay idinkana baahan tahay kutub laga akhriyo cajalada laga dhagaysto cilmi la sii weydiiyo si ay u ansaxdo arrimaha aynu sheegi doonno ilaa 7 qodob meelahaasa waxay u taagan yihiin qaybi waa faralkii kama kacdada ahaa haddii aad la iman weydo ay salaadu buraysa qaybina waa waxyaabaha jabinaya qaybina waa sunnayaasha adag qaybina waa sunnayaasha ka sii fududa ku xiga waa wixii uu nabigu wada sheegay calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli dad yaa waxaa u tukataan sidaa aragteen aniga u tukanayoo kale marka salaadu ma laha wax la iska jeclaysto iyo waxaad ku kordhinaysaa toona ma jiro sidaa nebigu inoo sheegay waa hadigiisii iyo dariiqadiisii baynu raacaynaa salaada waxyaabaha waajibaadkeeda ugu horeeya waxa kow ka ah shuruuddeeda shuruud bay leedahay shuruuddaasi waa laba mid waxaa la yidhaha shuruud ulwujuub midna waxaa la yidhaha shuruud usixa shuruud ulwujuub waa qofka laga helo ayay ku waajibtaa waa laba keliya waa muslim mukallaf ah qofku waa inuu muslim iyo gaal kama ansaxayso mukallafna waa inuu yahayo waa murakabun min shay-ayni waa inuu miyir qabaa oo aanu waalayn waa inuu yahay qof qaangaadha hadduu sabiyay wuu tukan karaa kumaysay waajibin waxaynu imanaynaa shuruudda marka ay salaadu ka ansaxayso la doonayo iyaduna waa 4 waktigu waa inuu galaa siduu ilaahayba qur-aanka ku sheegay inna salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta qofku waa inuu qiblada qaabilaa siduu qur-aanka ilaahay ku sheegay subxaanahu wa tacaala xagga qiblada u jeedsadaa qofku waa inuu cawrada asturaa yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid qofku waa inuu daahir yahay salaadu haddaana daahir ahayn ma ansaxdo طahaaradaasaa markaa 2 shardi iyaduna isugu jirta inaad xadad ka daahirtay xadadku waa waxa diida cibaadada waa jinaabadii waa qofkii oo dhiiggii caadada leh waa qofkii oo bilaa weyse ah waxyaabaha waa inuu nadiif ka yahay waxa labaadu nadiif ka noqonaya waxa loo yaqaano nijaasta qofka muslimkiina maxaa nijaasa waa inuu bartaa waxaynu islaamku nijaas u yaqaano waa inaad liiskeeda taqaano hadda kama hadlayno marka nijaas oo dhan waa inuu nadiif ka yahay jirhkiisa maradiisa iyo meesha uu ku tukanayo taasina waa mid kale markaa shuruudda 4 ah haddii dahaarada la kala saarana 5 noqonaysa iyo salaadu u baahanta waxaa timid tiirarkii salaadu ay ku taagnayd shuruud waa laga maarmaan haddii shardi lagaa waayana salaadu ma ansaxayso tiirarkan soo socdaynu tirinaynaana ee arkaanta loo yaqaanaana mid ka mida haddii la waayo salaadu way kaa buraysa waxa kow ka ah niyada inama alacmaalu binniyaat salaada markaad gelayso ma duhur baa ma casar baa ma maqrib baa dee iska tuka maaha laakiin salaada waa inaad niyootaa usalli farda la akhriyayaana ma jiro waayo daliil baanay lahayn nebigu ma odhan inoomana sheegin sala allahu calayhi wasalam arkaanta waxaa ka mid ah inaad salaaddii isu taagto waquumuu lilaahi qaanitiin fadhiga kaagama ansaxayso adigoo sara jooggii karaya arkaanta waxaa ka mid a inaad faatixadii akhrido rasuulkaa ku sheegay sala allahu calayhi wasalam qofku inaanay salaadi u ansaxayn haddaanu faatixada akhriyin qur-aanka kale iyadu way ka duwantay arkaanta waxaa ka mid a rukuucda oo si wanaagsan oo isku siman inaad dee u rukuucdo waxaa ka mid a sara jooggan ka dambeeya rukuucda oo ictidaal baa la ydhaah waxaa ka mid a inaad sujuuddo si wanaagsan oo deganaanshala u sujuuddo sara joogga yar waxaan leeyahay fadhiga yara udhexeeya labada sujuudood ayaa arkaanta isaguna ku jira oo waxaa la yidhaahdaa aljalsatu bayna sajdatayn waa fadhi yaroo labada sujuudoodbu isaguna udhexeeya arkaanta waxaa ka mid a waxa loo yaqaano adumaniina xasilooni digaag hadhuur guranaya inaad u egaato maaha digaag hadhuur guranaya dee deganaansho ma leh waa ama haan la lulayo oo ciir lagu lulayo qofku marka uu sujuudo
ama rukuuco ama ictidaalo waanu si fiican socodkiiyo soo socodkuu kala baxaa ninkii salaadiisa xumaynayay musii'u salaatihi la odhanayay waa halkuu nebigu ku qabsaday calayhi salaatu wasalaam arkaanta waxaa ka mida ataxiyaadka laftiisa ataxiyaadka hore maahe waa ka dambe ataxiyaadka dambe inaad u fadhiisato iyaduna ataxiyaadka inaad akhrido waxay ka mid tahay arkaanta in ataxiyaadka laftiisii isagana lala fadhiisto weeye oo haddaad isla taagto dadka qaar baa iyagoo yaro xawilan isilaawa oo faatixadana fadhiga ku akhriya ataxiyaadkana sala jooga wax lala yaabo maaha markaad bakhaarka xisaabinayso ama problem maskaxda kaaga furan yahay goor dambe waxa laga yaabaa dad labada dhinaca hareerahaagu inay kusoo eegaan markay ku maqlaan adiga oo tashahudka ama ataxiyaadka sala jooga ku akhriyaya waa tii islaamba odaygeedii ataxiyaadka sala jooga ku akhriyo way garatay inuu sahwisan yahay markaa waxay tihi nahuunooyinoo talo maxaa lala fadhiisan doonaabay ti wixii fadhiga lagu akhriyi jiray waatana waa la isla taagaye waayo fadhigana maxaa lala tegi markaa si aan taasi kugu dhicin ataxiyaadku waa fadhigaa lagu akhriyaa nebi maxamed in lagu saliyana culimada in badan baa arkaanta ku daray in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala اnebiy yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasallimuu tasliima kollayba waa waajib salligu ataxiyaadka dambuu waajibayaabaa culimada qayb ka midii ku tegeen arkaanta waxaa ka mida assalaamu calaykum waa ta hore altasliimatu اluulaa assalaamu calaykum inuu qofku idhaahdo arkaantay ka midta ta dambena waa sunne waxaa arkaanta 14aada ugu dambeeya tartiibta waxa wey kala habayn inaad ka soo bilowdo halkii aynu sheegaynay allahu akbar iyo niyadii ee assalaamu calaykum tana geyso oo aanad dabarogin salaadii intaasoo dhan waxay ka mid yihiin waxyaabaha loo yaqaano arkaanta 14ka inaad qaybto wey 14ka waa inaad qaybto oo aad garan karto haddaad mid ka mida ka tagto dee in isagiioo lala yimaado ragcadda midkaasi ka maqanyayna ragcaddaasi ma jirto marka waa inaad haddaana taa kala garanaynin waxaad ku kabta iyo ragcadaad u kacda iyo waxaad sahwida iyo midna garan mayse waxaa iyaduna laga maarmaan ahoo qodobka saddexaada muhiimka ah waxyaabaha salaada buriya oo loo yaqaano mubdilaatu salaad waxaa ka mid a hadalka waquumuu lilaahi qaanitiin ay saakitiin rasuulkuna wuxu uhi ina hadihi salaa laa yasluxu fiiha shay min kalaami الnaas qofkood tukanayaa inuu de iska hadhadlo hadalkii gaarka ahaa ee makhsuuska ahaa lagu tukanayay midaan ahayn way kaa jebinaysaa waa hadalka markaa ogaanta ah hadalka markaa sahwiga ama kaa dhaca ma burinayo cunitaankiibaa isaguna jebin karaa dhaqdhaqaaqiibaa jebinaya waa dhaqdhaqaaqii badnaa iyo cunitaanka salaada dhexdeeda wax cuntay iyo hadalkii aada hadashay culimada qaarna qosolkay kusii daraan waxa markaa jebinayoo kale shuruudihii aynu soo sheegnay haddii la waayo waxaa jebinaya arkaantii haddii la waayo shuruudihii shanta haddii la waayo salaadi ma jirto arkaantii haddii la waayona salaadi ma jirto intaa wuxuuna lagu darayaa hadalka iyo cunada iyo dhaqdhaqaaqa aan dee caadiga ahayn cunna sidee u suuroobi kartaa dee adigoo saambusiiska afka kusii hayaad liqday ama kii jaadka cunaya taksiinsanaa ayaa markuu safkii galay buu iska liqliqay nacnici baad iska muudsatay way dhici kartaa waxaa intaa inoo weheliya salaada maxaa qurxinaya sunnayaashii weeye aad bay u fara badan yihin kuwooda sii adag sunnayaasha muakadka macnaha waxyaabaha mu-akadka ah ee qolyaha qaarkoodna waajibaadka ku tilmaamaan madaahibtu waxaa ka mida kuwan soo socda allahu akbarahan sii socodka iyo soo socodka gacmaha oo la ysdul saaro midigta iyo bidixda ducadan la akhriyaya ee ka dambaysa markaad salaada xidhato qur-aanka kariimka ah ee la akhriyayo ee ka dambeeya faatixada aamiinta aynu odhanayno marka aada sujuudsan tahay inaad tasbiixo akhrido tasbiixi inaad akhrido oo weliba aad ka kordhiso mid marka aad salaada ku jirto weeye aynu ka hadlaynaa dee dabcan sunno iyo faralba waaya waxaa jira sunnayaal iyaguna kuwaa soo raaca oo laga yaabo inay qolyaha qaarkood dee sunanimadeeduna la isla waafaqsanya qolyaha qaarkood aanay waajibaadkooda ku darin
waxaa ka mida gacmahan kor loo qaadayo oo lala simayo dhegaha xadiid badanoo saxiixa ku soo aroortay allahu akbaraha la odhanayo subxaana allahi walxamdu lilaahi ataxiyaadka hore kuwa waajibaadkana way ku dareen qaarkood waxaa ka mida in fara badanoo waynu iska soo koobkoobaynaaye waa sunnayaasha allahu akbar markaad sii socotiyo markaad soo socoto samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamd markanaad ku jirto fadhigan udhexeeya labada sujood ducadaad akhriyayso rabbi kfir li warxamnii wajburnii warzuqnii ataxiyaadkii hore wahaluma jar waxaa ka mid a waxyaabo karaahiye ah aynu salaada ka ilaalinayno karaahiyadaasi ma burinaysa laakiin ajriga yaraynaysa waxaa ka mid a ijtimaalu samaa qofku inuu go keliya isku wada duuduubo oo isagoo qaawan buu go keliya saa u hilaabanaya markaa samica allaahu markuu idhaahdo cawradii baa bannaanaanaysa wuu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam talaum waa afduubashada qofkiiba afka duubanaya sax ma aha timaha dheereed leedahay iyo maryahaagu markay sidaa u laalaadsamaan inaad iyagana dib u celceliso sidan carabka cumaamadda leh had iyo jeer saasun maanta o dhan u celcelinayo sax ma aha ama markaad taagan tahay ood gaalada isu egeysiiso inuu qofka keliyaha qabsado isagoo salaaddii ku jira adaab baa la doonaya sidanaa la odhanayay taasina waxay ka mid tahay waxyaabaha karaahiyada ah waxaa ka mid a inaad ataxiyaadka inaad markaad salaada ku jirto xayawaanka u egaato oo siaad ugu egaan kartaa waxa weeyaan inaad ilaa suxullada gacmaha dhulka dhigto siduu aygu cagihiisa usoo dhigo oo kale ama aada usoo kambarhuurhsato sida daayeerku usoo fadhiisto oo kale daayeerku markuu wax cunayo labada cagood intuu salka dhigo ayuu labada cagood sidaa usoo fadhiistaa iqacaa wax la idhaahdo marka salkii iyo cagii baad dhulka wada dhigaysaa sidaasaad usoo fadhiisato xayawaankaad u egaanaysaa taasina waa karaaha waxaa karaahadii ka mid a dhaqdhaqaaqa kooban ee aan ila kii badnaa salaadu burinaye dhaqdhaqaaqa yar oo iltifaadka eegmadaad hareeraha yare eegaysa ilqoodha sidaa biduuni xaaja wax muraadina iyadoonu jirin hadduu muraad jiro oo arrin kale caaisha nebiga weydiiso wuxuu nebigu ku yihi waa xaditaan salaada qofka uu shaydaanku ka xadayo karaahiyada waxaa ka mida inaad isku dhajiso jilbaha iyo bogga ama laabtaada iyo jilbaha oo waxaa la doonaya qofku markuu sujuudsan yahay inuu sidaa isu sii kala daayo oo taxaamul sameeyo sidaasaa caafimaadkiisana u fiican oo inuu maskaxda madaxa si fiican u dhigo u qabadsiiyo sujuudda gacmahana hore usii daayo ayaa fiican oo sujuuddu sunnaheedu yahay laakiin hadduu sidaa isu gaabiyo qof oo halkan bogga iyo jilbaha ama caloosha iyo jilbaha isku qabto taasina waa waxyaabaha karaahiyada ay ka mid tahay markaas dhowr iyo tobankaa shay sunnayaashii weeye ilaa sideeddaa shayna waxyaabaha la karaahiyeystay weeye arkaantu waa intaas shuruuduna waa intaa waxyaabaha burinayaana waa intaa mid walba dee kolka laydhaha la isdul taago oo daliiladeeda ha la raaco wakhti dheer iyo muxaadaraad bay qaadanaysaa wuxuunaan uga jeedaa uun inaad dhagaha ku qaadataan wixii aad sii diraasayn lahaydeen faralkiisa iyo sunnihiisaba allah inagu anfaco soomkiiyo salaadana allah inaga aqbalo cilmiga iyo cibaadadana allah inoo sakhiro